Bismillahirrahmanirrahim. Nabadgelyo saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka kuwa Soomaalida kuwooda ugu waaweyn ee Garmaal TV heesana waxaa kamid ah General Xuud ayaa shacay inuu qabsaday magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kadib dagaal uu la galay maamulka gobolka Hiiraan gabadha 15 jirka ahayd ee kursigeeda la diiday ee kula tartantay xildhibaan sareeda oo hadasha maantay shirka golaha watashi qaran oo ka furmay magaalada Muqdisho iyo saddex qodob oo xasaasi ah horyaala shirkaasi waare oo Roble siiyay tala la xiriirta wasiirada iyo madaxda maamul goboleedyada ee raacsan farmaajo maxay taa sababta Cabdullaahi Maxamed Nuur oo u beegsaday ciidanka nasay garoonka cadde warbixino dheeraad ayaan intaga heynaa intaas waa qodobada ugu door koron ee warka Garmaal TV iminkan u diyaar garoow ayagoo fidsan aan ku bilownay General Xuud ayaa shacay inuu qabsaday magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kadib dagaal oo la galay maamulka gobolka Hiiraan General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal ciidankiisa shalay la galeen maamulka gobolka Hiiraan kaas oo guul ku sheegteen General Xuud ayaa beeniyay inuu bilaabo dagaalka wuxuu sheegay in dagaalku ka dhacay deegaanka qoolada oo qiyaasi 20 kiiloomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan wuxuu sheegay inuu hadda si buuxda gacanta uga hayo magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan isla markaa ciidankiisa joogaan inta badan xaafadaha magaalada Beledweyne waxa ilaa xalay magaalada ka socday dadaal la doonay in si nabad magaalada ku yimaadaan Cali Jeete Ismaan iyo ciidamadii la socday General Xuud ayaa sheegay ujeedadiisu tahay dhismaha maamul goboleed lagu magacaabo Hiiraan oo aysan doonin wax la qaybsadaan maamulka haatan jiray Hirshabelle oo Cali Guud madaxweynaha ka yahay Xuud ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in diideen wada hadal iyo heshiis la gaaray ciidamadiisa sidaas awgeedna xoog iyo cabarin ku dhiseen maamulka haatan jiray Hirshabelle General Xuud ayaa sheegay in madaxtinimada gobolkaasi qaateen dad uu sheegay inaysan u dhalan gobolkaasi oo ujeedadu ay tahay buu yiri in madaxtinimada ku helaan sidaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete wuxuu sheegay in dagaalka shalay dhacay ayagu guusha raacday isla markaana ciidamadii ka soo horjeeday ay u carareen dhul uu sheegay in ku sugan yihiin al-shabaab wuxuu intaas ku daray in Beledweyne ku soo horgaan bandow isla markaana howlgallada socod doonaan balse ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in bandowgaasi uu sawli dhaqan galin oo xalay ilaa xil dambe magaalada socdeen mudaharaad looga soo horjeedo maamulkaasi iyo dagaalada ka socda Hirshabelle iminkana gabadha 15 jirka ahayd ee kursigeeda la diiday ee kula tartantay xildhibaan sareedo oo muddo kadib hadashay musharaxadii la tartantay xildhibaan sareedo Maxamed Cabdalla oo ayadoo markale difaacatay kursiga hab 154 oo guddiga doorashooyinka sheegeen in qaabka loo amro doorashadaasi aysan waafaqsaneyn habraacyada doorashada guddiga doorashada heer federaal ayaa hore u sheegay in gabadhii la tartantay sareedo aysan buuxin shuruudihii musharaxnimada gabadhan oo lagu magacaabo Firdowsi Ibraahim Cabdi oo ayadoo garab taagan xildhibaan sareedo beenisay inay joogto da'da 15 jir isla markaa da'da ku sheegtay 27 jir taasoo meesha ka saaraysa idinta loo jeediyay kursiga hab 154 hadal ay jeedisay Firdowsi ay ku tiri waligeed ma tagin meel lagu tartamayo aniga ayaa codsay in doorashada la galo xildhibaan sareedo oo ayadoo hadashay ayaa sheegtay in da'da laga faafiyay gabadhii la tartantay ka dambeeyeen dad xumaantashi ah si kastaba arinta yaab kale ayaa ah in gabadhan iyo xildhibaan sareedo ay wada socdaan toddobaad kadib doorashadii taasoo muujinaysa inuu xiriir ka dhaxeeyo oo doorashada ka ahayd malxiis hadalkan ayaa imaanaya xilli guddiga doorashooyinka heer federaal ee horaantii bishii hore ku dhawaaqeen in kursiga ku guuleystay xildhibaan sareedo ku celis yahay waxna kama jiraan ay tahay natiijadii ka soo baxday markana eegno shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirka golaha watashi qaran ayaa ka furmay magaalada Muqdisho iyo saddex qodob oo xasaasi ah horyaala shirkaasi magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka golaha watashi qaran ee u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho shirka ayaa waxaa daafuray ra'iisul wasaare Roble waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inta badan waxaa shirka diiradda loogu saari doonaa saddex qodob oo waaweyn balse laga yaabo in qodobo kale oo yaryar ku soo hoos jiraan kuwaas oo kala ah in amniga guud dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble saxitaanka habraaca doorashooyinka oo musuqmaasuq badan u hareeyay in waqti cayiman lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka Soomaaliya qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa sharaxaad lagu bixiyay furitaanka shirkaasi oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyay shirka golaha watashi qaran oo ka furmay magaalada Muqdisho kaasoo diiradda lagu saarayo amniga dardargelinta doorashooyinka daafurnaanta iyo jaangoonta xilliga la soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale rajada laga qabo inuu guuleysto shirka maanta ka furmay ayaa ah mid aad u yar iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedyada ay taabacsan farmaajo rumaysan yahay in is hortaagi doonaan qorshayaal dhowr ah oo ka soo horjeeda madaxweynihii hore si kastaba xaaladda dalka oo marayo ayaa ah mid aad u cakiran waxaana dadka Soomaaliyeed isha ku wada hayaan qodobada
bismillaahi raxmaani raxiim maanta magaalada muqdisho waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda shirkan oo ay ka wada qayb galayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwalayn lahaa isla markaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladdan waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran dadka u qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midowga musharaxiinta maaragtay xubno matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay tala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan sixitaanka doorashada ra'iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qarankan waxaa ka go'an inay shilkan ka guulgaaraan sidoo kalena lagu xalliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala aragti duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto waare oo roob la siiyay tala la xiriirta wasiirada iyo madaxda maamul goboleedyada ee raacsan farmaajo madaxweynihii hore dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare oo wareysi cusub bixiyay ayaa mar kale weerar afka ku qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo sidoo kale ka hadlay xiisada hadda taagan Waare oo warramay ayaa ku eediyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu sidoo raba ka yeelanayo dastuurka kuna tuumanayo shuruucda dalka sidoo kale wuxuu intaas ku daray in Farmaajo xaaladiisa dagaal ay tahay mid khatar ah isla markaana qofka mas'uulka amniga ku karaama tiro dadkiisa sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha Hirshabelle oo hadalkiisii wata ayaa fariin u diray ra'iisul wasaare Roble wuxuu naga digay inuu markale gacanta u galiyo sidoo kalena uu aqbalo wada hadallada ay garwadan ka yihiin xubno ka agdhow Farmaajo Soomaaliya ayaa waxaa weli ka taagan xiisad xoogan oo ka dhalatay doorashooyinka taasoo ka sii dartay markuu soo laba kacaliyay khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Roble maxay tahay sababta Cabdullaahi Maxamed Nuur uu beegsaday ciidanka nasay ku sugan garoonka Aadan Cadde wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay sababtii ka dambeysay tilaabada wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ku amray agaasimaha NISA Yaasiin Fari in ciidanka NISA laga saaro garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Fiqi ayaa u taageeray tilaabadaas isagoo sheegay in ciidanka NISA sanadii dambe garoonka Aadan Cadde ku howlgali jireen ay fuli jireen dana gaar u ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fiqi ayaa sheegay in ciidanka lagu amray inay ka baxaan garoonka oo hore uga afduubteen dad u safri lahaa gobolka Jubbada Hoose iyo Gadow Jubbaland ugu dambeyn Axmed Macalin Fiqi ayaa wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ku bogaadiyay go'aanka nabad sugidda looga saaray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho guud ahaan daawadayaal waa naga intaas warkii Garmaal TV aad ka daawanayseen nabadgelyo